dhanka iyo Somaliland halkaas oo xisbiga kulmiye haya talada jamhuuriyadda goonistaaggeeda ku dhawaaqday Somaliland uu bayaan u soo saaray ku shaaciyay in gobol kasta ay tahay in xisbiga ugu yaraan hal musharax oo haweena uu soo rashaxo doorashooyinka soo aadan ee golaha wakiilada haweenka Somaliland ayaa ku guuldareystay in loo meelmariyo qondo u gaar ah iyadoo arrintaas laga duulayana mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye waxay ku doodayaan inay doonayaan inay fursad u abuuraan haweenka haddaba waxaan umuurtaas ka waraystay Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni afhayeenka xisbiga kulmiye ee haya talada Somaliland walaal waxaa xisbiga kulmiye aanu soo saarnay isla mar ahaantaasina aanu ku amarnay wakiiladayda gobolada ee dalka in liiska ay usoo gudbin doonaan xarunta dhexe ama xisbiga kulmiye ee hogaankiisa in ay kusoo daraan xubno haweena oo marka ugu yar tahay ay tahay hal qof oo haweene inuu gobol kastaba ku jiro ayaa walaal ay daarnay wareegtada xisbiga soo saaray tirada guud ee haweenka ee aad doonaysaan inaad usoo sharaxdaan golaha wakiilada ee Somaliland waa mise walaal horta waxay kasoo dhex bixi doontaa tiro eenu hadda amarnay waxay ku salaysan tahay doorashada golaha wakiilada ee aanu rabno 2021 inay dalka ka dhacdo waa 6 gobol oo Somaliland marka waxay noqon doontaa marka ugu yar tahay haddii laga soo gobolkiiba hal qof oo haweena tiradaas waxay noqon doontaa 6 haweena maadaama deelkoodii haweenka ee qaanuunka Somaliland ay ka hor imanaysay ay suuroobi weyday xisbiga isagoo ahmiyad gaara iyo siinaya xurmada ay haweenka u hayaan isla mar ahaantaasina ay tahay siyaasadda xisbiga kulmiye in la tayeeyo in kor loo qaado golayaashana ay si mug looga muuqdaan haweenku ayaana u goosanay arrintaasi marka waxaanu filaynaa tiro ay murtaax ku noqdaan oo aad iyo aad u farax gelisa inay iyaguna la soo bixi doonaan mar xisbigii uu siiyey fursad siyaasi waa tahay xisbigii baad siiyey baad leedahay fursad siyaasi ah in fursad la siiyo haweenkana muddo dheer bay soo jiitamaysay oo dadka u ololeeya haweenka iyo arrimaha bulshadaba ay arrintaa wadeen quus baana laga taagnaa maadaama labada gole ee baarlamaan ee Somaliland ay arrintaa diideen marka idinka xisbi ahaan maxaad qaban kartaan mar haddii dhinacyadii kale dhan ay diideen walaal horta dee anagu xisbigii kale haatee waxaan nahayba u ololeey in haweenku koota ay helaan marka waxa jirtay in labadii gole qaran ay isku raaceen in arrinta kootadu ay ka hor imanayso qaanuunka Somaliland u yaala isla mar ahaantaasina annaguna waan ku raacnay sababta dee aan ugu raacnayna waxa weeye doorashooyinkeeda oo waqti dheer naga qaatay haddii aan isnidaano gudagala in qaanuunkii isagana dib loo eego si loo waafajiyo kootada haweenka waqti dheer naga qaadanayso ayaa iyadna muuqatay marka waxaanu anagu xisbi ahaan aanu qaadanay inta gacanteeda ku jirta iyo siyaasadda xisbigaba in aan si rasmi ah ay uga muuqdaan gobolada dalka isla mar ahaantaasina xarunta xisbiga ee Hargeysa liisaska gobolada loo soo gudbinayay aanay qaban doonin liis aanay haween ku jirin ma laga yaabaa in arrintan aad dana siyaasadeed ka leedihiin oo aad doonaysaan inaad taageero kusoo jiidataan oo marka dambe aad raggun soo magacowdaan tartanka si u galaan walaal horta waxaan kusinayaa dadweynaha dhageysanayana aan xasuusinayaa taariikh jirtana ah doorashadii golahan maanta fadhiya ee golaha wakiilada doorashadii ay ku yimaadeen ee 2005 xubintii ugu horeysay ee cod shacab ku timaaday inay ka soo baxday xisbiga kulmiye marka xisbiga kulmiye kuma xanxantaysanayo haweenka iyo dana siyaasadeed kama laha waa siyaasad cad oo xisbiga kulmiye uu siiyo haweenka isla mar ahaantaasina aan ognahay qiimaha iyo sharafka weyn ee xisbiga kulmiye guurihiisii taariikhiga ahayd ee muddooyinkii kala dambeeyay uu gaaray inay lafdhabar u yihiin haweenku dhinaca kale la eegana iyo siyaasadda xisbiga rasmiga ah ayayba tahayba in haween xurmadooda la siiyo wixii ay xaq siyaasi u leeyihiin waxaad sheegtay in haweenka ay dowr lixaad leh ka ciyaareen guusha aad gaarteen dhanka siyaasadda sida muuqatana hoggaanka sare ee xisbigan kulmiye kama muuqdaan marka dadka qaar waxay ku doodayaan intii aad boos loo tartamaya u diri lahaydeen boosaskan la magacaabayo maxaadan haweenka u siinayn horta hoggaanka xisbiga kulmiye taariikhda Somaliland markii ugu horeysay xisbigan wuxuu soo gudbay 2002 gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee waqtigaasi waxay ahayd xubin haweena sida kalena xisbigani waa xisbiga kale haata ee Somaliland fursado siyaasiya oo taariikhiya oo guulo siyaasiya haweenkuna ay ku gaareen maantana waxa weeye lagu majiirto waa xisbiga kale haata 2 jeerna talada dalka kan aan hantiyay waxa weeye isla maanta xukuumaddan si weyn ay uga muuqdaan waxa weeye dekreetooyinka oo gudoomiye xisbiga madaxweynaha Somaliland ayaa magacaabayba haweene wasaare iyo agaasimayaal guud iyo hay'adaha madaxa banaanaa u dhiibay marka waa in isla xisbiga kulmiye xukuumadii ka dhalatay
na haweenkii kama qabtana marka lama oran karo waxa weeyaan maxaa hoggaanka xisbiga uga qayb geli waayeen xisbigii talada hayay xukuumaddii ka farcantay ee ka dhalatay ayaaba dee waxa weeye ay muuqaal weyn iyo maanta ay ku leeyihiin